gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi ku-xigeenada labada aqal ee baarlamaanka guddoonka iyo xubnaha guddiga qabanqaabada xildhibaanada ciidamada saxaafadda marti sharafta iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay dunida daafaheeda ka joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Aadan Hoosow waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ku dhashay kuna barbaaray Soomaaliya waxaan leeyahay aqoon heer sare ah oo aan ka qaatay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaalla waddamada adduunyada ugu heer saraysan waxbarashada xaggeeda waddanka United Kingdom waxaan soo qabtay xil wasaaradeed oo federaal waxaan soo noqday guddoomiyihii gobolka Baay oo ka mid ah gobollada ugu dadka badan Soomaaliya waxaan ka soo shaqeeyey hay'ado caalami ah waxaan ku hadlaa 5 luuqadood luqadda Soomaaliga May iyo Maxaa luqadda Ingiriisiga luqadda Carabiga luqadda Amxaariga iyo luqadda Norweejiga mudanayaal iyo marwooyin taagnaashahayga maanta halkan iyo isu soo sharxidayda xilkan waxay dad badan ula muuqataa filan waa inkastoo aan buuxin karo dhammaan shuruudaha u yaalla qofka xilkan soo doonanaya haddana waxaa jirtay hal shuruud oo aanan buuxin karin oo ah in inta badan 60kii ilaa iyo hadda laba reer ay xilkan isku bedbedelayeen oo ay ahayd inaanan ka dhalan reerkii xilkaas qaban lahaa halkaas waa meesha ay ka bilaabato mudanayaal iyo marwooyin mushkiladda Soomaaliya oo idil waxaan nahay waddan raba nabad horumar iyo sumcad dawladeed haddana hoggaanka dalkiisu uu ku soo baxo keliya reere la ogyahay haddii reerahaas midkood ay soo saarto dimuqraadiyadda maanta halkanna keentay uu midkii beesha kale oo laga adkaaday uu ku noqonayo caqabad ragaadisa waddanka oo u abuurta dhibaato siyaasadeed aas-aaskeedu uu yahay beel mudanayaal iyo marwooyin hoggaan dabran ma dhici karto inuu dalkan ka saaro marxaladda uu ku jiray tan iyo 60kii waa waxaan 62 sano la dhaqaaqi weyn haddii aad doorataan waxaan aaminsanahay inaan noqon doono hoggaan mudnaanta siinaya dhayidda boogaha waddankeena uu ka kici laayahay oo midaan sheegay kow ay ka tahay waxyaabaha aan ka shaqayn doono oon wax ka qaban doono inkastoo aan halkan lagu soo koobi karin oo uu barnaamij looga diyaarsan yahay 756 page ah waxaa ka mid ah in yar baan ka taabanayaa waxaan ka shaqayn doonaa siyaasad loo dhan yahay inclusive politics oo aan ahayn wax qoqoban oo qayb gaara ay ka shaqayso siyaasadda dalka hadda waxay u dhisan tahay qaab xuquuqda ka xira muwaadiniin wax u tari lahaa waddankan waa qaab dhismeed ay ku dulman yihiin inta xishoota ee alla kacabsiga leh waa qaab dhismeed sahlaya in hantida iyo fursadaha dawladda ay gacanta dad yar ku ururto waa qaab dhismeed aasaya xaqiraya kala duwanaanshaha dhaqan iyo afeed ee bulshada Soomaaliyeed waa qaab dhismeed dhiirigelinaya boob iyo ismuquunin siyaasadeed iyo dhaqaale haddii aan ku guulaysto xilka waxaan fursad siin doonaa dhammaan inta waxgaradka rag iyo dumar culamaa u diin dhalinyaro inta nabadda jecel in laga guuro siyaasaddan salka ku haysa geeljiranimada
loona guuro siyaasad nabadeed oo ilbaxnimo iyo wada noolaansho dhiirigelinaysa dhaqan walbana halkiisa ku ixtiraamaysa. waxaan mudanayaal marweyn ka shaqayn doonaa dib u heshiisiin dhab ah oo aan ahayn wax afka un laga sheego. soomaalida ilbaxa ee dulman, kuwa afka gaaban ee nabadda jecel, iyo kuwa iyagu xukunka isku kooba, dhammaantood way ii sinaan doonaan. haddii aan ku guulaysto xilka, waxaan magacaabi doonaa guddi ama hay-ad ka shaqaysa dib u heshiisiin dhab ah. waa dhab in walaalaheena Somaliland ay dulmi tirsanayaan dad badan oo mas-uuliyiinta ama madaxda waddanka ka tirsan ay u muujiyeen garowshiyo. laakiin mar walba waxaan isweydiiyaa, maxaa garowshiyo looga muujin waayey dhibtii ka dhacday Baydhabo 92 waxaan goobjoog u ahaa oo aan gacmahayga ku aasayay dad tiradooda 400 ilaa 600 ay u dhaxayso maalin walba oo Soomaaliyeed oo qalfoof noqday. cid garowshiyo ka bixisay ama ka hadlaysana aan la arkay. mudanayaal iyo marweyn, dowladdii la rabay inay fursado dhaqaale u abuurto shacabka ayaa iyada noqotay il dhaqaale laftigeedaba iyo aalad musuqmaasuq. qofkii aan u dhoweyn ilahaas wuxuu noqday sabool aan haysan nolol maalmeedkiisa, oo ay ka xiran yihiin fursadaha waxbarashada, kuwa caafimaadka iyo wixii la mid ah ee uu u baahnaa muwaadinka Soomaaliyeed. haddii aad i doorataan, waxaan si dhab ah ula dagaalami doonaa musuqmaasuqa heerkuu doona ha ahaadee. aan ahayn qof isagu malaayiin dhacaya ee agaasimo $100 u xiraya. waxaas musuqmaasuq la dirid maaha. dhaqaalaha waddankuna wuxuu noqon doonaa mid bulshada loogu adeego oo aan loo adeegsan. mudanayaal iyo marweyn, amniga heshiis lagama aha. siyaasadda amnigana waxay u baahan tahay qaabayn. argagixisada waxay ka faa'iidaysataa Soomaalida lagu dulmiyey dowladnimada ee qaba tabashada. ciidamada tababar keliya kuma filna ee waa in xuquuqdooda oo dhammaystiran ay helaan. ma haystaan xerooyin, ma haystaan mushaar ku filan, ma haystaan dowlad ka ilaalisa inay siyaasadda ku milmaan, ma haystaan iyaga iyo carruurtoodiiba caafimaad ku filan iyo waxbarasho. shaqo la'aanta oo iyadu ah qayb kaloo weyn, maadaama lagu sheego waddankeena dhallinyaradiisu in 75% ay yihiin dadka Soomaaliya ku nool, 65 ilaa 70na lagu sheego inay shaqo la'aan yihiin. waxay qayb weyn ka noqon kartaa shaqo la'aantu amni xumada ama nabadgelyo darrada. waxaan abuuri doonaa oon ka shaqayn doonaa in la abuuro fursado shaqo hadduu Ilaahay idmo, iyo kuwo farsamooyinta gacanta lagu barto si dhallinyarada aysan hal meel u wada aadin oy u aadaan meelaha kale oo iyagu ka shaqaysan karaan. waxbarashadu, waan ognahay mudanayaal iyo marweyn, aqoontu waa iftiin. hase ahaatee dhaqanka siyaasadda iyo boobka iyo ku salaysan ayaa keenay in manhajka dalka lagu xaqiro gobollo, dhaqamo, luuqado, taasoo keentay inay bulshadu kala fogaato. waxaa la buunbuuniyey dhaqan colaadeed, gabayo gaara oo hal dhinaca, halka kuwa kalena la xaqiray. haddii aan xilka ku guulaysto, waxaan abuurayaa waxbarasho ku salaysan manhaj nabadeed, aqoon casri ah, iskoolo lacag la'aan ah oo dadka tabaalaysan oo dhan ay ka faa'iidaysan karaan, oo aan hal dhinacun u xaglin, dhinaca kalena aan dhulka la gelin, ayadoo homogeneity laga sheekaynayo iyo in Soomaali ay mid tahay. waxaan ka shaqayn doonaa deganaansho siyaasadeed, anuu xoogga saari doona inaan kala madax banayno hay-adaha dastuuriga sida hay-adda fulinta, hay-adda korjoogtaynta ku leh iyo cadaaladda. waxaan dhammaystiri doonaa dhismaha guddiga adeegga garsoorka oo shaqadiisu ay dhammaan la'dahay. waxaan dhisi doonaa maxkamadda dastuurka.
waxaan noqon doonaa madaxweyne ilaaliya sharciga ee aan u isticmaalin awoodda si qaldan waayo waxaan ogahay sidii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi abuu mascuud alansaari isagoo garaacaya addoonkiisa markuu arkay iclam yaa abaa mascuud ina allaha aqdaru calayka minka calaa hada algulaam awoodda aad wiilkan addoonka ku ahaad u sheeganayso oad ku garaacayso ilaahay wuxuu leeyahay awood taas ka saraysa ayuu adiga kugu leeyahy marna ma isticmaali doono awood anoo u isticmaalaya muwaadin kale oo soomaaliyeed si gardarra ah waxaan noqon doonaa madaxweyne ku dhaqma hadalkii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allah u naxariistee mudane cabdirasaaq xaaji xuseen ee ahaa qofka ku habboon shaqada in la geeyo aftalyaani buu ku sheegay il uomo giusto al posto giusto ayaan ku shaqayn doonaa qof walba wuxuu qaban yaqaanaan u dhiibaa hadduu ilaahay diiday waxaa jirta maahmaah norwejiyaana waxay tidhaahdaa the films ike dårlig var bare dårlig klar hawo xun ma jirtay dhahaan dhar xumaa jirta un haddii qabow uu jiro dharkii qabowgaad qaadanaysaa hadduu kuleel jiro dharka kuleelkaad qaadanaysaa ayadoo baraf u da-ayo garan haddaad qaadato adaa isdilaya taasoo micnaheedu yahay xaalad weliba dadkeeda waa haysanaa oo soomaaliyeed oo ka shaqayn kara amniga dadkeeda waa haysanaa dhaqaalaha dadkii dhisi lahaa waa haysanaa wax walba qof soomaaliyeed oo ka shaqeeyaan u haysana musiibadu waa naasnuujinta oo qof aan u qalmin booskiisa lagu ciriirinayo oo la leeyahay adiga ii joog meeshaan anaa kuu haaya si aad dal walba dalka u dhisto waa inaad dalkiisa dhistaa buug uu qoray paulo coelho oo lagu magacaabo like the flowing river ayaa waxaa ku jirtay wiil yar oo aabbihiisoo shaqaynaya oo akhrisanaya joornaal uu ku yidhi fadlan waxaad ka shaqaysaa joornaalkan qaybtan ii dhis buu yidhi oo baaba'san raalli ahaada wakhtiga ayaa aad ciriiri u ah waa ka tegayaa taas waxaan rabaa inaan marka ugu dambayso idhaahdo reer awkay iyo la dowha fade tan kale waa si kale aan u sheegan doonaa edkin tookudun ani imbaaho oo biilaahay idiidi madisin dad kale siyaasan jarti ani dadkaas kale mayka shal enaa gobay may jarel eraay madi kor ku koytan kurita kalaan kalaasan oo bukon korsitan unihanii kahaasan edkun isin biyaasano dad kale siyaasan hatu walsiin ku tuuge hadhown walsiin ka dhibaatee tookudun uni fadaane unanasya oo biilaahay idiidi oo bakala laabudkun uni leh lambalodisley lakooyo kalaale sidoo ilay unu balalaadnani aragay yeesan sugaas sidii oo dhagankaada jira waxaan ku soo gabagabaynayaa wakhtigoo aad u yar dartiisa dad baa laga yaabaa hadalkayga inay dhibsadaan waxaan leeyahay xikmaddii ahayd if you are accustomed to privilege equality feels like oppression haddaad cadaalad darro ku caanamaasho in badan inay dadku wada ceeshaan iscaburin bay dadka qaar ula muuqanaysaa hadduu ilaahay idmo waxaan musharax u ahay qof walba oo dulman qof walba oo la yidhi xilkan ma qaban kartid qof walba oo sistamku uu diiday qof walba ee raba inuu xilkan qabto ee shuruudo gaara sistemaatiga ay ku xiran yihiin ayaan musharax u ahay hadduu ilaahay diidno waxaana aad iyo aad muhiim iigu ah maanta inaan halkan soo istaago laftigeeda ayaa aad muhiim iigu ah waxaan rajaynayaa in dad badan tookada tan xigta ay yimaadaan halkan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu